Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xidhan Raacdaya Academy ama channelkan Raacdaya Academy. Sidii aan horuu u ballan qaaday fiidiyoyadii hore waxaan halkii kasii wadaynaa casharadii inoo ahaa kala duwanaa ee taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay aqoonta ama xirfadaha ama skillska looga baahan yahay ardayda undergraduate-ka ah ee qoraya buuggii tayska ahaa ay ku qalin jabinayeen kulliyadaha run ahaantii kala duwan. Maadaama halkan kulliyad khaasa aanan kaga hadlaynin, waxaan si gaara uga hadlaynaa qodobo guud oo magaranaysaay aan fikir iyo base hadhowto ardaygu magaranaysaay uu ku raadsan karo mid walba disciplineka iyo kulliyadda uu ka yimi wixii ka khuseeya uu ku raadsan karo. Marka mar walba casharadani waa casharo waa inaad ogaataan inay yihiin general oo la xidhiidho qaababka loo qoro tayska. Marka waxaan maraynay casharkii hore sida loo qoro maxaa la dhahayay chapter 3. Haddaba waxaa halkan ka soo baxay su'aal kale oo magaranaysaay dadka ku xidhan casharadani ay aad ii soo weydiinayaan mar walba oo ah waxa loo yaqaano quantitative research iyo qualitative research. Sidaas daraaddeed waxaan go'aansaday bal horta inaan isdul taagno aan fikir kooban ka bixino muxuu yahay waxa loo yaqaano quantitative research. Qayb kalena waxaan kaga hadli doonaa haddii Ilaahay ka dhigo qualitative research. And then waxaan isku compare garayn doonaa aan comparison isbarbar dhigi doonaa labadan entity ama labadan qaybood ee waaweyn ee researchka cilmiga researchka marka la baranayo uu ku fadhiyo oo laba run ahaantii falsafado waaweyn ku fadhiya ah. Marka ugu horreyn waxaan doonayaa horta inaan ka hadlo quantitative research waxa loo yaqaano. Muxuu yahay quantitative research? Markaad doonayso run ahaantii quantitative iyo qualitative research, dadka qaarkood tusaale ahaan markay researchka oo kale ka hadlayaan ama ay qaybinayaan run ahaantii waxay ka dhigaan researchku inuu qaybsamo laba qaybood, laakiin si marka loo eego ma noqon karo. Laakiin marka laga hadlayo approachka researchka uu marayo ama attitudeka researchka uu marayo, researchku laba nooc buu noqdaa oo marka approachka ama attitudeka ama hab fikirka loo eego, hab fikirkeenu actually orayna waa quantitative iyo qualitative. Quantitative iyo qualitative haddaynu backgroundkooda ku noqono run ahaantii waa waxay nala gelaysaa aqoon aad u dheer oo falsafad ku fadhida oo markaa aynu gelayno kasoo bilaabayno waxa loo yaqaano ontology-ga dabeetana epistemology-ga oo ka hadlaya maxay bay tahay aqooni ma jirtaa, reality ma jirtaa, maxay tahay, sidee lagu helaa oo magaranaysaay epistemology-ga sidee baynu aqoon ku heli karnaa. Markay halkaa taagannahay sideebaa aqoon lagu heli karaa, saddex falsafadood baa yimaada, labaa ugu sii muhiimsan, labadaasi qualitative-ka iyo quantitative-ka kala arooraan. Labadaasi qolo waa qolada odhanaysa aqoonta waxa la yidhaahdaa waa objective oo marka waa qolada la yidhaahdo objectivism-ka oo aaminsan dunida waxaa ka jira hal reality ayaa ka jira. Halkaa reality-na bini aadamka wax xidhiidha lama leh. Waa sida geed halkaa ku yaalla oo aad doonanayso dabeetana aad baarayso geedkani sida uu biyaha ku helo, sida uu u taagan yahay, sida uu u beermay. Kaasoo kale aqoonta noocaasba waxa loo yaqaanaa ama falsafada noocaas waxa la yidhahdaa objectivism. Objectivism-kaasi waxay kusoo xiga oo yacni ka farcama qolo la yidhahdo positivism. Positivism-kuna waxay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah aqoonta waxaa lagu heli karaa observation. Marka sida ay objectivism-ka oo kale ay aaminsan inay jirto single reality, hal xaqiiqo. Quantitative-ku marka dhammaan objectivism theory-ga la yidhaahdo ama falsafada la yidhaahdo objectivism iyo positivism iyo post-positivism qolyaha la yidhaahdo oo dhan marka la isku wada daro oo dhammaantoodna aaminsan inay hal reality jiro, dhammaantood waxay ku abtirsadaan quantitative research. Qualitative researchku iyagu way ka duwan yihiin oo waxay ku abtirsadaan qolo la yidhaahdo subjectivism oo kasoo horjeeda objectivism oo macnaheedu yahay waxaa jira multiple reality, yacni aqoon fara badan, macrifo fara badan baa jira. Dhammaan macrifada jirtaana waa wax bini aadamka ku xidhan, yacni maaha outside halkii qoladii kale ay aaminsanayd. Qoladii kale waxay reality-gu bini aadamka waa uu ka baxsan yahay. Waxay aaminsanayeen object-gu keligii inuu aqoon samayn karo. Halka qualitative-ku ay aaminsan yihiin in laba qof oo isu yimi ama qof iyo object inay samayn karaan reality. Marka waxa iyagana kasoo facaba qolo theory aad u caan ah oo la yidhaahdo constructivism oo macnaheedu yahay bini aadamku inuu dhiso aqoonta. Taa macnaheedu waxa weeyaan waxa la yidhaahdaa aqoontu waxay ku xidhan tahay bini aadamka.
waxyaabaha constructivismka iyo subjectivismka ay aqoon u yaqaaneen waxaa kamid tusaale ahaan oo kale midabka, waxaa kamid human behaviorka, human feelingka, waxaa kamid saambalada tusaale ahaan oo kale sida midabka oo kale ee dhaqan gaarihii jecel yahay qaarna uu neceb yahay dhammaan waxaasoo dhan waxay u yaqaan aqoon. waxyaabaha tusaale ahaan oo kale sida dhaqanka, diinta iyagu aqoon bay u yaqaaneen halka objectivismka iyo subjectivismka labadaa qolona aanay aqoon u aqoonayn. marka qualitativeka waxaa la yidhahdaa wuxuu ku abtirsadaa subjectivism. subjectivismka macnaheedu waxa weeyaan waa wax aan lahayn hal reality. taa macnaheedu waxa weeyaan marka uu qualitative aynu ka hadlayno aqoonta qualitativeku ma aha wax hal number lagu soo ururin karo. haddaba intaa markaynu ka nimaadno waxaynu isweydiinaynaa muxuu yahay quantitative research. quantitative research waxaa la yidhahdaa waa in research loo isticmaalo in lagu dhaliyo ama lagu abuuro numerical data and hard facts iyadoo la isticmaalayo numerical data yacni daytadii oo qaab number loo taxliilinayo ama lagu isticmaalayo sida SBS ama xisaabaad ama statistics waxa la midka. qualitativeka xogtiisa laguma abuuro ama laguma taxliiliyo numerical data isagu xisaab ma soo galo number ma soo galo waayo tusaale ahaan oo kale jacayl haddaynu ka hadlayno oo kale love sidee baynu love xisaab ugu calculate gareyn karnaa never. waayo waxaa laga yaabaa jacaylka inuu qofna si u yaqaano egas oo qof ah inuu si u yaqaano way oo qof inuu si kale u yaqaano. qurux oo kale haddaynu ka hadlayno dee qurux hal number isuguma keeni karno oo numerical data uma bedeli karno ama ma cabiri karno. waayo waxaa laga yaabaa 10 qof oo aynu wareysi ka soo qaadnay 10ka qofba inay quruxda qaab u yaqaaneen. waxyaabaha noocaas ah qualitative la dhigi karaya researchada noocaas waxyaabaha lagu sameeyo. laakiin quantitative markaynu ka hadlayno waa wax kasta oo aqbali kara numerical data iyo statistics. waa wax kasta oo variable aqbali kara ama wax kasta oo cause iyo effect yeelan kara halka qualitative waxyaabahaasi aanu la dhigi karin. marka gabagabada quantitative marka la joogo waxyaabaha lagu isticmaalo lagu calculate gareeyo waxaa kamid ah statistical, logical, mathematical waxyaabahaas oo dhan baa loo isticmaalaa. waxaa laga yaabaa tusaale ahaan 400 oo qof xog laga soo ururiyay in one number la isugu keeno iyadoo average loo sameynayo laakiin qualitativeku ma aqbalo isagu waxaa. marka area ayaynu ka eegaynaa waxaynu ka eegaynaa xagga approachka uu maro ama attitudeka ayaynu ka eegaynaa habfikirka quantitativku waa 400 oo qof xog laga soo ururiyay ayaad hal reality hal yacni solution isugu wada keenaysa dabeetana taa macnaheedu waxa weeyaan dad aad u fara badan ayaad ku generalize gareyn kartaa ku baahin kartaa mana aqbalo qualitativeku objective isagu waa subjective ma laha wax la yidhahdo generalization ama baahin guud keliya laakiin wuxuu aqbalaa transferability wax la yidhahdo oo in la isku transfer gareyn karo xogtii meel kala duwan. marka objective markaynu u jeedno isagu waa objective yacni tusaalahaan oo kale questionnaire markaad isticmaalayso kale questionnaireka aytamadii ama su-aalihii markaad weydiiso jawaabihiina adaa siinaya qofku waxaad ka doonaysaa hal jawaab ku siiyo halka qualitative oo kale qofku intaasoo jawaabood ku siinay intabana aad ku khasbantay inaad raacdo marka waa objective. xagga reasoningka marka laga hadlayo ama logical reasoningka marka laga hadlayo waa laba reasoning ama waa inductive ama waa deductive. quantitative isagu waa deductive muxuu yahay deductive waxa weeyaan theory jira ama existing theory ayaa test gareynaysaa whether inay tahay wrong or right. tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa inaad mar walba maqasho markaad researchka iyo meelaha soo dhigatay waxa loo yaqaano maxaa la dhahayay hypothesiseka waxaa laga yaabaa inaad aragto ama hypothesiseka waa la reject gareeyey ama waa la accept gareeyey. hypothesisku ama waa null ama waa alternative. taa macnaheedu waxa weeyaan quantitative research waxa uu isticmaalaa theory haruu jiray dabeetana wuu test gareeyaa si uu u ogaado in theorygaasi uu yahay mid saxa ama uu khaldan yahay ayuu soo laakiin qualitativeku qaabka maaha isagu wuxuu generate gareeyaa theoryada ama waxa uu generate gareeyaa hypothesis buu generate gareeyaa. taa macnaheedu waxa weeyaan markaynu joogno tusaale ahaan oo kale deductiveka aynu taagannahay theory baad qaadanaysaa ama hypothesis fadhig ama researchku isha ka dhig laakiin markaad qualitative joogto waxbaad observation ku sameynaysaa waxbaad isku calculate garanaysaa baad reason fara badan oo logica u sameynaysaa dabeetana from general to particular oo macnaheedu yahay wax guud baad soo
ururinaysaa xog fara badan oo guud baad soo ururinaysaa dabeetana waxaad isugu keenaysaa hal theory ayaad isugu keenaysaa theorygaasuu dabeetana quantitative ku qaadanaya markaasuu test garaynaya inay tahay sax iyo inay khalad marka waxaa loo yaqaana cilmigan oo kale marka la joogo deductiveka iyo inductiveka waxaa la yihahdaa empirical cycle baa leedahay marka waa qaab dheer buu soo maraa hadduu inductive aad qaadato macnaheedu waxa weeye aakhirka theory baad abuuraysaa waana qualitative marka xog iyo observation iyo waxyaabahaas isticmaalaysa laakiin haddaad quantitative researchkaagu yahay macnaheedu waxa weeyaan theory jira ayaad isticmaalaysaa marka waa in researchkaagu mar walba uu ka muuqdaa waxyaabaha conceptigaad isticmaalaysa ama theorygaad isticmaalaysa marka deductiveku waxa weeyaan waa markaad isticmaalayso theory jira si aad u test garayso hypothesis-ka ka mid ah waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale research questionkii waxaasa ka mid ah oo aad ka jawaabayso ama aad diidayso odhanayso waxaas wax jira maaha ama wax jira quantitative-ka iskale laakiin qualitative male marka isagu waa deductive ka kale waynu arki doonaa inductive baa la yidhahdaa kaa markaan ka nimaadna xagga samplingkaynu eegna samplingka qualitative iyo quantitative way u kala duwan yihiin quantitativeku samplekiisu waa random qaab randoma ayaa loo isticmaalaa taa macnaheedu waxa weeyaan qof kasta oo ka qayb gala ah ama member kasta oo ka qayb gala ah in la doorto iyo inaan la dooran waa inaad u siisaa chance ah equal opportunities ayuu xaq u leeyahay halka qualitative-ku aanu sidaa ahayn isagu waa purposive marka criteria ayaad diyaarsanaysaa criteria-daada dadka aad ka hesho ayuunbaad hadhowto interview ku samaynaysaa laakiin samplingka quantitative-ku marka la joogo waa random dhinac kale haddaynu ka eegno dadka samplingkaaga soo galaa quantitative-ka aad bay u fara badan yihiin halka qualitative-ka aad 5 wareysan karto 10 aad wareysan karto 20 aad wareysan karto marka tusaalahaan kale waxaa laga yaabaa qualitative-ka in dad dhan oo 8 milyan ama 14 milyan 70 qof inaad ka wareysato inaafna ayaan tahay weliba aad u badan tahay laakiin marka la joogo quantitative-ka 8 milyan haddii la calculate gareeyo dee numberka aad buu u fara badanaya 100,000 maybe 50,000 40,000 saasoo kale ku badanaya marka aad buu u fara badanya waana random oo probability ku soo gala xagga daytada iyo xogta dadka laga soo ururiyey quantitative-ku mar walba waa measurable waa la cabiraa measure baa la saaraa laakiin iyada waa verbal waxaad soo ururinaysaa cod ama waad soo qori ama waad soo duubi waxa ay dadku ku hadleen baad kooran ku samaynaysaa qaab ka duwan oo aan measure ahayn ayaa loo isticmaala waayo isagu xisaab ma soo gala qualitative laakiin kan waa la measure gareeyaa waa la qiyaasaa qaabab mathematical oo loo isticmaala baa jira kan hypothesis-kiisa markaynu ka hadlayno isagu hypothesis-ka wuu test gareeyaa laakiin ma abuuro marka mar haddii quantitative hypothesis-ka uu test gareeyo taa macnaheedu waxa weeyaan qualitative-ku hypothesis-ka wuu generate gareeyaa isaga ayaa soo saara si kale haddii hypothesis-ku waa like waa theory uun theory-gan markaa qualitative-ka ayaa soo saara marka sababaha uga muhiimsan weeyaan maxaa haddaba la analyze gareeyaa marka research quantitative-ka la joogo waxyaabaha qaabka loo analyze gareeyo waxaa ka mid ah waa numerical data waa xog aad number u bedelayso oo statistic ah laakiin marka la joogo qualitative-ka wax numerical lama isticmaalo waa marmarka qaarkood waxaa lasoo gelaya percentage ama frequency waxaa iyadoo la baarayo laakiin ereygaasi inta uu meesha kusoo noqday oo qofkaasi uu isticmaalay ayaa la adeegsanaya marka waxyaabaha aad mar walba maskaxda ku haynayso weeyaan xagga methodka marka la eego isagu waa structure techniques sida survey ama questionnaire ama observations marka waa qaab structured maadaama uu statistical ku xiran laakiin qualitative marka la joogo waa non structured yacni instrumentyada aan ka hadlayno weeyaan oo isagu ama focus group ama interview ama participation ama direct ha noqdo ama indirect waxyaabahaasaa la isticmaalaa observationka laftiisu kana uu soo gala laakiin inta badan waxaa u badan ka kala u badan xagga resultiga marka la eego gabagabada waxaad ka soo jeedinaysaa researchkaagii recommendation baad soo jeedinaysaa oo adigoo nambara ku soo ururinaya boqolkiiba intaa dadka waxaa sii boqolkiiba intaa wadada ciidda ka badan laakiin ka kale sidaa waa uu ka duwan yahay xagga resultiga marka laga hadlayo conclusion baad samaynaysaa dabeetana recommendation baad samaynaysaa qualitative waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid ah gaarka u ah generalization researchkaagii markaad tusaalahaan 400 qof baad cod ka soo ururisay dadka guud ee target populationka ku ahaana waxay ahaa inaad sample ka samaysay yacni burco kale u ahaa burco oo dhan baad ku generalize galaynaysaa burco oo dhan ayaad ku baahinaysaa dadka burco aslaha adoo ku base gareynaya quantitative kunba taa oo kale laakiin hadduu yahay qualitative waad area gaara ka samaysay areadaas unbaa loo adeegsanaya area kale oo lamid ah looma adeegsan karo laakiin waxay aqbashaa halkaa bedelkeeda
transfersion xogta aad qaadato aad meel kale u bedesho. waxyaabaha caan waxaa kamid ah variableska tusaalahaan inta badan ardayda undergraduate kuwa aadka u yaqaana waxaa kamid ah IV-ga DV-ga ama causan effect-ga labadaa haddaad maqasho meesha variable uu soo galo macnaheedu waxa weeyaan quantitative research weeyaan ma laha qualitative researchku wax variable ah waa inaad mar walba taa maskaxda ku haysaa. marka almuhim waxa weeyaan markaynu isku soo wada ururino quantitative researchku iyo qualitative researchku hab fikirka iyo falsafada way kala duwan yihiin. qualitative researchku wuxuu aaminsan yahay in waxa la yiraahdo aqoontu ama macrifadu ay tahay wax fara badan bini'aadamka xiriir la leh bini'aadamku uu sameeyo oo aan ka baxsanayn. halka quantitative-ka iyo falsafada noocaasi waxay aaminsan yihiin in aqoontu wax ay tahay out of the human laakiin bini'aadamku wuu raadsadaa isagoo experimentation observation isagoo waxyaabahaas samaynaya ayuu aqoonta soo kasbadaa. marka waa sida geed halkaa ku yaalo kale geedka markaa halkaa markuu kaaga muuqdo waa inaad doonataa raadisaa baadhaa aad indhaindhaysaa. laakiin waxay aaminsan yihiin laba qof markay isu yimaadaan aqoon bay abuurayaan hal qof iyo object markay isu yimaadaan aqoon bay abuurayaan. marka waxay aaminsan yihiin aqoonta waa la sameeyaa waxaana loo bedelaa foomam kala duwan sidoo kale waa wax bini'aadamka ku xidhan oo mar walba ku tiirsan. laakiin quantitative-ka iyo falsafada ay galaan waxay aaminsan yihiin aqoontu inaanay wax bini'aadamka yacni ay ka madax bannaan tahay oo aanay ku tiirsanayn. arrintaasaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan rajeynayaa gabagabada inaad fiidiyowgan markaad daawato aad nala wadaagi doonto wixii feedback sidoo kale waxaan rajeynayaa inaanad ilaawin subscribe si aad ula socoto qaybaha dambe ee aan magaranaysaa halkan idinkula wadaagi doono. sidoo kale waa muhiim inaad gaarsiiso walaalaha kale ee dareynaya ama u khuseeyo casharkani. aad ayaad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum.